السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إلهو نقدق كوها ننصن دادكنا هنونية دمان دادكا صومالية دي برنامج كقفاعو كداواني صومالي كنديان تي في كندقي سنية راديو بورمسي KMS 102.7 FM dadka Soomaaliyeed waxaan la wadaagaya xaaladda Soomaalidu maanta ku sugan tahay markay noqoto dawladnimada xaalad qurux badan ma xaalad wanaagsan ma Soomaali waxa haysta khilaaf mar walba soo noqonaya khilaafkana waxa keenaya waxa weeye Soomaali waxa dhibtan u geysanaya dad ay ugu horeyso danta guud danta gaarka iyagu leeyihiin danta guud danta gaar iyagu leeyihiin waxaynu arkaynaa mar walba shir baa dhacaya waa la isku imanaya maamul goboleedadii baa isku imanaya waxa aan arkaynaa intaasa diidan oo bayaan soo saaray dawladii bayaan bay soo saartay in badan waxa ummadda Soomaaliyeed u baahan in la isweydiiyo bal horta inaynu fahanno siyaasad waa maxay siyaasad waxa weeye sida loo qiyaaso loo macneeyo loo maamulo nolol dad wanaagan meel weyn iyo meel yar meel weyn iyo meel yar hadiiba aynu mar rabna inaynu wax samaysano dawladnimadan aad ogtihiin inay tahay social contract heshiis bulsho maxay tahay markaa waxa maanta mar walba inta la isku yimaado bayaan la soo saaro qolo kale bayaan ka daba saarto ummadda jaha waraag lagu rido waxay noo muuqdaa oo ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay dadka maanta aynu arkayno wadadan ka badnayn haddii la isku daro maamul goboleedada 20 qof kama badna ummadda Soomaaliyeed waxa jaha wareerka ku ridaya ama waa 10 qof ama waa 20 qof oo iyagu dana gaar ay leeyihiin isku haystaan ka dhigaya dan guud ummadina ay tahay dad qof walba uu arkayo waxa taagan waxaan ummadda Soomaaliyeed leh waxaynu arkaynaa waxa la inoo sameeyay oo ay tahay federalismku inaynaan inagu ka bixi karin waxa arrimahan aynu isku haysano ee maamul goboleedada iyo dawladdu ay tahay dad qoomiyada ma dad qabiila inagu qabiila ayaynuna marka horeba aasaaska waxan ayaa wuxuu ahaa aasaas la inoogu tala galay inayna khilaaf ka dhamaan marka horeba asaaska loo sameeyay ee loo dhisay si ayna khilaaf uga dhamaanin ayaa waxanay u ahaa waxa la inoogu yeeray oo layna yiri Soomaali xal ha u raadiyaan kuwii mushkiladaha sameeyayba waa kuwii jabadii way maamul goboleedada aynu arkaynaa waa kuwii jabhadihii ayaa la yiri iyagu xal ha keenaan qofka waxa la yiri markuu xanuunsanayo waxa loo baahan yahay in la daweeyo halkii dawada aan uga baahnayn baa waxay tahay in kuwii victimka inagu ahaaba iyagii layna yiri iyagu ummadii ha hagaan iyagu ummadii ha maamulaan iyagu ummadii ha isku keenaan sidee isku galaysaa markaa halka wax ka qaldan yihiin waxa weeye dadku inay ogaadaan Soomaalidu waa qabiilo Soomaalidu waa qabiilo maaha qoomiyado sababtoo Soomaalidu waxa la inoogu tala galay in deegaanada aynu wada deganna mada la isku qabsado mado maamul goboleedadu inay mada halkan ay yiraahdaan annaga iyagu xadka yagi ahaa kuwana yiraahdaan xadka yagi kanu ahaa dagaal joogto halka uu ka dhasho waxa kale oo dibtu taagan tahay waxa weeye Soomaali
waxaynu u baahannahay good leaders dad maamulka uu ka yahay daacad labadii sifo ee ay diinta islaamku inoo sheegtayna leh waa maxay waa aqoon ah macrifatullahi ilaahay cabsidiisa maaha political science maaha doctor engineera maaha doctor computer science maaha doctor environmentala maaha dadku in badan istidaalu khayru istidaal bay aayadaha iyo xadiista ka hadlaya u daliishadaan markaynu nahay dad muslimiina waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyo marka laga hadlayo maamulka dad muslin ee la rabo dadka hogaamiyaha u ah aayadda quraanka ee suuratu qisas ku jirta labada sifo waxa weeyaan waxa qofkani uu sameeyo inuu macrifo u leeyahay macrifada ugu horeysana maxay tahay macrifadii ilaahay macrifadii diinta islaamka iyo amaano maanta waxaynu arkaynaa siyaasad dad gaar ay leeyihiin oo ay ka hadli karaan aqoon-yahano iyo siyaasiyiin qora la yiraah oo dan gaara ku shaqaysa Soomaali in looga dhigo inaga siyaasadeena inaga caynkan way waxaasina waxa ummadda dhibaatada u keenayo way waxaynu qaadanay oo ogtihiin oo ku celcelinaysaan waa dimuqraadiyad wali ismaynaan weydiin waa maxay dimuqraadiyadu dimuqraadiyadu waa xukunka shacabka ayaa iska leh inaguna dad muslimiina baynuna xukunka ilaahay baa iska leh dimuqraadiyadu arkaan bay leedahay arkaanteeda waxa ka mid ah ururo magacyo leh waxa ka mid ah baarlaman waxa ka mid ah constitution sharci ka soo horjeeda shareecada ururadu maxay leeyihiin ururadu waxay leeyihiin aniga waxa la yiraahdaa xisbi hebel xisbiga kale iga soo horjeeda waa beenaale xisbiga iga soo horjeeda waa tuug xisbigu waxa uu danaynayaa nin kasta oo uu cod ka helayo ma danaynayo runta ninka sheegaya ma danaynayo ninka beenta sheegaya ma danaynayo qofka dumarka ma danaynayo qofka aqoon-yahanka ee wax garanaya balaag ilaahay wuxuu leeyahay hal yastawi alladina ya'lamuun walladina la ya'lamuun miyay siman yihiin ninkii wax garanayay iyo kii aan wax garanayn alaysa dakaruka al-untha labkii iyo dhidigii miyay siman yihiin beentii iyo runtii miyay siman yihiin haddaad maqasho urur waxa wata dimuqraadiyado waxaasoo iswato uunbuu danaynayaa wax allaaliya waxaasoo dhanna uma muuqdo ka kale horjeedana uu fadeexadaynaya maxay wataan qolo baarlamanka u fadhida baarlamanku waa maxay waa sharci dejin inaga sharcigu dhamaystiran dad muslimiina baynuna diintani waa kaamil qolada baarlamanka fadhida constitutionada ay sameynayaan waa maxay intaa waxaynu arkaynaa oo mar walba aad aragteen khilaafkan faraha badan leh waxaan socda waa wax diidan shareecadeennii dhaqaale lagu bixinayo xitaa waxyaalihii caamka ahaa ee dadka ka dhaxeeyay ayaanay baarlamanku ku heshiin karin inay wax ku wada qabsan karin waynu arkaynaa maxaa ka mid ah dimuqraadiyadda sharci loogu talagalay shareecada wax ka soo horjeeda maanta dalka Soomaaliya inagu kama talino Soomaali kama taliso xalana looga taliyaa mar allaaliya marka khilaaf la maqlo madaxweynaha iyo maamul goboleedyada xamra markay joogaan waxay ku xiraadaan xalane ninba UN oo qaabilsan waxay yiraahdaan dadka aqoon-yahanada iyo siyaasiyiintu in badan Soomaalidu United Nationskii wuxuu yidhi bay yiraahdaan United Nationku adduunyada waa corruption iska adduunyada ka jira way haddii adduunyadu United Nationku qiimo u leeyahay oo wax qabanayo Falastiin maanta hay-adaha ugu badan ee UN ku leeyahay baa ku yaala ummadana lacag fara badan baa looga guraa haddana way ka marayeen waxaan ummadda Soomaaliyeed la wadaagaya oo aanu sheegaya mar hadduu hayigu qaybsamo waa hunguri joog waxa loo baahanyahay dadka Soomaaliyeed inay u soo noqdaan diinta islaamka in kitaabka quraanka iyo sunnada u soo noqdaan dad muslimiin aynu nahay ma kala maaranno waxaanu nahay dad isku midaba
dad isku luqada dad isku diina maanta fikirkan aynu isku haysanno ee aad arkaysaana khilaafkani aan dhammaanaynin waa mid laynoogu talagalay aynu ilaahay ka baqno ummadda soomaaliyeed midnimadeeda ka shaqayno diintan islaamka u soo noqonno waanigoo tafaqatiraha Somali Canadian TV and Radio Borame Hamud Sultan Ali Ilmi Sultan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.